waqtigaaga haddaad manage garayso wax kastoo aad doonayso waad gaari kartaa everything adigoo maanta aan alif aqoon haddaad go'aanka qaadato inaad wax barato jaamacad waad ka bixi kartaa adigoo aan farta sida loo qoro aqoon hadaf markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag nafta markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashada ama naar gashada waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadaf kuu tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa dhallinyaroy waxaan leeyahay akhriyo adduunba waa xoogsan karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha u waajah waxaad go'aansatana waad xaqiijin kartaa waa inayd yeelataa to do list qaa'imat alacmaal berri ama usbuucan maxaad qaban doontaa inaad garanayso to do list waxaan rabaa inaan qabto shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa 2 sano kadib waxaan rabaa inaan halkaa joogo sidaan halkaa u gaadhayaa 2 sano kadib waxaan u gaadhayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa inaan gaadho maxaa carqalada igu ah waxa iyo waxa iyo waxa waa sida aad u go'aan qaadato noloshu waa sida aad ahdaaf u samaysato gool sida aad u samaysato sidee baa looga faa'iideeyaa waqtiga how waabad go'aansatay war waqti dambe yuu kaa lumin sidee looga faa'iideeyaa sidee buu waqtigaagu mid midho dhala u noqon karaa waxay dhahdeen kow waa inaad hadaf yeelataa hadafku waa gool waa yool waa ujeediya meel aad u socoto waa inaad yeelataa haddaanad hadaf lahayn waqti kama faa'iideyn kartid hadafku waa waxa keenaya inaad waxiigsato oo meel gaadhid waxaasaad rabtaa inaad gaadhid nolosha waxa kaloo dhammi markaa tuul waxay u noqonayaan saad waxa u gaadhi lahayd nolosha kaloo dhan waxaad u adeegsanaysaa saad waxa u gaadhi lahayd ahdaaf yaryaroo ka sokaysaa jiraysa hadafka weynaad u socoto laakiin waxaad qabanaysoo dhammi waa inuu noqdaa wax hadafkaa ku gaadhsiin karaya waxaad qabanaysoo dhammi hadafka wax ku gaadhsiin karaya waa inuu ahaadaa haddii aanay saasi dhicin waqtigaagu faa'iido badan yeelan maayo hadaf markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag nafta markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto intaad hadafkaaga ka xaqiijinayso noloshu waa kufid iyo kacid noloshu smooth maaha intaad hadaf dhigato shurug intaad tidhaahda markiiba meel laga gaadhaa ma jirto sidaa maaha noloshu dhalinyarada inta badan waxaa laga yaabaa intuu yidhahdo hadafka waa inaan jaamacad waa inaan ka baxaa gartay sabjigaasaan kaga baxayaa gartay waa hadaf laakiin maxaa ka sokeeya caraqil baad ka sokaysaa haddii aanad hadaf lahayn haddaanad gool lahayn waxaad la mid noqonaysaa doon raran oo meel ay ku socotaanay jirin haddaynu doon buuxino nidhaana badun ha dhex socoto soo nin waalan oo kale soo noqon maayo ninkay doontaa wada doon iska raran oo buuxda waan meel laba u socon waxaa la mida ninka iska noole aan hadafba lahayn saaka cun soo toos caawo seexo berri soo kac saa dambana seexo soo toos seexo cun meel u socdaa ma jirto insha allah wuxuun bay noqon doontaa buu aaminsan yahay noloshu sidaa xaqiiqa kuma noqoto noloshu waa inay ujeeddo yeelataa iyo meelaad ku socoto مثلا قفك مؤمن كا وجددي سووا إنه حويان والله لمنايا نولش نبي جبوا بس آخر الوصعة جنية نار باكرة إلهي الرالي قال أنت سوا وجدد وين
waxaad hadaf leedahay ka sokeeyo oo dhammi weynay masalada u shaqaynayaan waxaad ahdaaf le waayo nolosha halkaa meelaan hayn tegi mayso waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashad ama naar gashad waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadaf kuu tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli hashiisa laakiin hadafna waan leeyahay waxaan wadaana hadafka uuma shaqeeyaan suurtagal maaha maadaama nolosheennu ay tahay hadafkaa weyn inaynu xaqiijino maalan iyo nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aakhiro mu'minku waxyaabaha uu ugu murugo badan yahay waxaa ka mid ah laxda dunida ku soo martay oo aanu ilaahay dikrigiisu soo marin tira ayuu nabigu ku tilmaamay markaad saxaafada haddii lagu hor keeno ay ka soo baxdo intaasoo waqtiyo aanad ilaahayba xasuusanin waa waxyaabaha qofka mu'minka ahay ugu murugo badan yahay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tira bay maalinta qiyaama ku tahay ka labaadaan idin tilmaamaya waxa weeye hadafa yeelato ku kalaan tilmaamayaa ah waqtiga dhowr shaqaa la wada qaban karaa adigoo hadafkaagii u socda tusaalay bixiyaan qaarkood waxay yidhahdaan maalan haddaad weel weyn ama foosto gobolo ama yani weel weyn haddaad lagu idhaha dhagxan waaweyn ku gur dee 5 6 7 dhagax markaad ku riddo waa maxay wuu buuxsamayaa haddii lagu idhaahdo markaa qururux ka dabagee dhagxan yar dhagxanta yar ridde meel ay ka gasho bay helaysaa haddana waxaa laga yaabaa 2 baaldiyo qururuxa inaad dib ugu shubto haddii lagu yidhaahdo ciid ka dabagee ciidduna meel ay ka gasho way helaysaa waxaa laga yaabaa 2 baaldiyo ciidana inaad ka dabageyso baashi waa buuxdaa haddii lagu yidhaahdo biyo ku shub haddana la waayi maayo biyuu meel ay ka galaan way sii gelayaan waxay dhahdaan waqtiga bini aadamku si uga faa'iidaysta waa sidaa qof 4 dhagaxe waaweyn intuu ku ridaa buu yidhaha waa buuxaa waqti ma hayaanu subaxi waan soo toosa soomaalidu maxay ka sheegeen waxay yidhaahdaan nin bay nacas ku sheegeen dadka oo dhan baa wada nacaskaasi in badanoo ka mid yahay waxay dhahdeen nin baa nacas ahayo geeljuro ahayo waxaa la yidhi war maxaad u cadayan weyda wuxuu yidhi dee maantiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goorbaan cadayda shaqadiisii wuxuu ku soo koobay 2 waqtuun inay tay 2 waqtina midna inuu hurdo midna inuu maxay xoolaha raacayo waxaa la mid ah in badan oo inaga mid sida inuu fakarnaa saasiya that's why aynu waqti u weyni salaam siinaya arday baa tahay مثلا jaamacad dhigta meelihiina kan jaamacada ama shaqada minimum 20-30 minutes baa loo socdaa soo maaha inta ugu yar ama gaari wado ama tareen fuul ama waxaa fuul mostly marka aad ka soo baxdo gurigaaga ilaa intaad shaqada ka gaadhayso ama aad ka gaadhayso jaamacadda waxaa laga yaabaa inay nus saac qaadato nus saaca maxaad qabataa ninkii aan sheegay sidiisii haddaad u fakarayso waxaad odhanaysaa jaamacaddii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa markaa haddaad ninkaan sheegay sidiisii u fakaraysid waxaad leedahay shaqadii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa haddaad se rumaysantii hadafkana inaad ku socoto waqtiganna inaad wax labaadna ka faa'iideyn karta ka waran haddaad tareefuushanto aad tidhaahdo jiskayga qur-aanaan akrinaya ka waran wardigaygii maantaan rogayaa xataa adigoo gaadhiga wada wardiga waad rogi kartaa gaadhiga afka lagama kaxeeye subxaana allah alxamdulilah ma odhan kartaa adigoo gaadhiga ka wadaya intaad wardigi kartaa dhuso saacaas baad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa every 2-3 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo every 2 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo imse goor baad subxaanallah ama astaqfirullah odhan karaysaa intaad gaadhayso shaqada uun ما ها وقت أد ما يلفر الله يبغى تقول هذا ما أنت وحال لقاك بهين تكون شر سبحان الله ترى من لقى وقت بهلي نام نكون ما يلفر السنة أنت تكون شر لقى ورا يو صدق كونوا شر بعد ورا خريسة هدي أنت هتشغل كوسي صعطه هتسمع حاجة ركته تمعنى هذا حويا وقت قلنا و shaqooyin badan baa la qaban karaa isagoo waxaad u assign garaysay baad haddana
wax kale dhexdiisa sii qaban kartaa adigoo shaqada wadaad wardiyi kartaa shayga kale aan tilmaamaya wuxuu yahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka habeenkooda ka faa'iidaystay aakhiro siday u guulaysanayaan الصهر الإيماني dadka habeenkoodii wax ka mida u soo jeeday inay ilaahay caabudaan siday aakhiro u guulaysan karayaan إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يقول لك الله كعب صدى آخرة جنوين إلى بيوت بيكون راحي سنيا آخذين ما أتاهم ربهم وحال السيئة قادنيا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أدونك إنت يشوغين بأهين قوصة مفلا محسنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هبينكي هجوع عدو يرى أما هبينكي سكالبا هدينون لانو سيحشد عدو يرى معناه waa maxay habeenkoodu hurdo qura kuma bixi jirine shaqo kale way qabsan jireen oo way cibaadeysan jireen weeyaan waqtu saxarka salaadu markay soo dhowdahayna istighfaartay badsan jireen thuluthul layl al-akhir xadiiskii waa kii tilmaamay ilaahay inuu yiraahdo wariya toobad keenayaan toobad ka aqbalaya istighfaariya waxay weydiisanayaan wax siiya وقتنا إلهي ببريا سبحانه وتعالى وحي إلهي قرآن كينا قلت المامية معايير العلم السهر هبين كيني سوشيت كيساني وكمديه أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مي سمين با إلهي ليه كو هبين كي تاغن يقول سجودية إلهي سبحانه وتعالى عبسيدي سواي هيسو آخر كور ورية نحرستا للرجينية كوا سميي سميين يكوا سيدا يلين لبدا كوحاد وحلقة دقي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كوا وحقونتا يكوا وحقونتا هينمي سميين كوا وحقون كيوا كوي وكوا انفورميشن تربضا لماذا حودا كوشرا مايا أيضا وحنا تلمامسين يجين كوا قرنا يوحي ونولين كوا قرنا يهدف كي كسعدين يا آخر إلهي سبحانه وتعالى نلا حساب طميه كوا صاء الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكوا هدف كلمي إنما يتذكر أولو الألباب إلهي وحوان توبة وحقوقاته كوا قراتك وصاحبك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كل هذه النصوص وحي الماميسا وقتك كفائدي سيجي سدتك كفائدي هدفك أقوينا أقفائدي ولما وقت قودي أي راحة كتشري لهايين وحكم يدك قوي أيها الأحبة qofka muuminka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay qof aan firaaq aqoon shaqooyinku qabanayuunbaa isbedela laakiin firaaq ilaahayna nabigiisii muxuu ku yidhi faidaa faragta fansab shaqooyinka adduunya waxaasoo kale iyo dacwo kuwa markaad ka soo daasho ku daal ilaahay suurtaagiisa cibaado kala bilow waqtigu waa waxa dadka aakhiro hal seega waa shayga qura ay u calaacali doonaan xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun geeridu markay u timaadaba ilaahay yidhi bay waxay idhahdaan rabbi irjicuun ilaahu i celi oo muxuu ku falayaa celista lacallii acmalu saalixan fiima tarakt ayuha alaxiba haddaad waqtiga qiimihiisii fahamtay isla markaana aad hadaf yeelatay garatayna waqtigu ahdaaf tiro badan inaad ku wada samayn karto waxaan ku gabagabaynaynaa sidii aad waqtigaaga u qaybin lahayd
waxay dhahdaan kow waa inay yeelataa to do list qaa'imat alacmaal berri ama usbuucan maxaad qaban doontaa inaad garanayso to do list waxaan rabaa inaan qabto shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa waa wax cad oo la garanayo ka labaad waa inaad jadwal u samaysaa saacadee iyo saacadee baad qabanaysaa waxaa saacadaasaan qabanaya subaxii markaan soo tooso waxaasaan qabanaya waqtiga ku xiga waqtigaasaan qabanaya waxa ku xiga waqtigaasaan qabanaya to do listkaagu bay dhaha waa inuu mar kasta ku hor yaallaa gurigaaga derbi walba waa inuu kuugu dhijisan yahay shaygaan qoladan dambe shaqada waa inuu kuugu dhijisan yahay waxaad qabanayso meeshay ishaadu ku dhacdaba waa inaad arki kartaa bay dhahdaan wixii aad rabtay inaad waan ilaabayo maanta buuggii maan eegiyo waxa lagama rabo waxa laga intaad buug yar ku qorto isaga laftiisuba inuu kaalmo amaad ilowdo laakiin haddaad everywhere sudha bay leeyihin meel kasta hadduu kuu suran yahay mar kasta ishaadu waa ku dhacaysaa musqushuu kuu suran yahay fadhiguu kuu suran yahay halkuu kuu suran yahay every time waad arkaysaa waad garanaysaa nin shaqa sugaysa inaad tahay waxa inaad qabanayso jadwal buu kuu leeyahay time table ad waxa ku fulisa buu kuu leeyahay wuxuu kaloo kuu leeyahay priorities tartiib alawlawiyaat wuu kuu kala muhiimsan yahay مثلا تشنت صلاة ضد بريورتي وكله وقت جوده وحكي على مدعي كرتين تسيسه لكن مثلا هذا ضحى وسط ما حد يليسه أما وقت جاءت رتين هذا وحقوق بطه مدي ركاح وصدايتين هذا اخترك جيسه بريورتيز واتكلا منظم باتكلا الصينيسه هدي لكن وحقو جدول ليه هي مال أد وقت وجه الشباب ودوسه ليس حتى أنت كل ضافته waad qallayn karaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan noloshaadoo dhan inay muratab tahay alxaya kullaha noloshaadu inay tahay maxay mid qaabaysan oo sidaad adigu rabto u soconaysa midaad adigu yeedhsatay waxaa 2 sano kadib waxaan rabaa inaan halkaa joogo sidaan halkaa u gaadhayaa 2 sano kadib waxaan u gaadhayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa inaan gaadho maxaa carqalada igu ah waxa maxaan kaga tallaabi karayaa inaan sidaa iyo sidaa yeelo dan to do listkaaga uu qoran yahay usbuuca kan 3 bilood soo socda waa inaan waxaa qabtaa jadwal baad u samaysay waa inuu saa noqda 3 bilood kadib waa inaad garan kartaa meeshii inaad gaadhay haddaanad gaadhin maxaa kugu soo kordhay taada dambuu nidaamku kuu saxaya hadday tan nidaamku kaa qaldantay waxaan uga dan leeyahay marka noloshu idaaratu alwaqti kama maaranto nolosha inaad maarayso kama maaranto noloshu soo toosoo wax cunoo iska soco waxaasaan samaynayaa unoo duuduuba kuma sax noqoto waxaasaan samayn doonaa kuma sax noqoto waxaad u baahantahay markaa waqtigaaga inaad ka faa'iidayso intaa ka badan insha allahu tacaala meelaha lagu qoro ama bugaagtaa ka warantaad sida waqtiga loo idaareeyo ka akhri doontaan laakiin duuduub ahaan waxaan idin tilmaamayaa cimrigaagu waa intaa yare aad haysatee intaasi ha kuu nidaamsanaato sidii aad uga faa'iidaysan lahayd weer quran kuugu soo koobayaana waxay tahay timekaagu ama aakhira ha kuugu jiro ama adduun ha kuugu jiro time cidla kuluma ma jiro ama manfac dunawiya waynu kuu leeyahay ama waynu kuu leeyahay maxay manfac ukhrawiya laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacni islaamnimada qofka wanaageeda waxaa ka mida buu nebigu yidhi inuu ka tago waxa aan macnaa samaynin waxa aan isaga khusaynin waxa aan dani ugu jirin waa inaad ka dhex eegtaa waxa kan hadafkaagii ma xaqiijinaya dani ma kuugu jirtaa dan adduun ma ku haysaa ama dan aakhira ma ku haysaa wa ilaa wax allaaliyo manfac kuuma leh caawa laga bilaabo waa inaad iska xidhaa wax allaaliyo waxaad si leedahay manfac adduunna kuuma leh manfac aakhirana kuuma leh caawa laga bilaabo waa inaad iska xidhaa
وين دوكسوناتا وقت كاغا هداد مانج غريسو وح كستو ادوني سو غاري كرتا everything adigoo maanta aan alif aqoon haddaad go-aanka qaadato inaad wax barato jaamacad waad ka bixi kartaa adigoo aan farta sida loo qoro aqoon dad qaatoo ka baxay baa jira maalan azhar sheekhul azhar ninka shuyuukhdeedii soo maray ka mid ahaa dhowr iyo konton jir buu ku gaadhay isagoo waxna qorin waxna akhrinin fayruusyadii reelishisyada iyo mid shirishido mid ardaya gaas iyo wax kaga qubteen oo kiibaa maagay oo dhowr balkaaga jaahilka ahi naga du jaahilkiibuu ka xanaaqay dabeetana maalintaasuu bilaabay inuu yidhahdo waxbaa baranaya ninkii faynuusta masaajidka shidi jiray azhar oo dhan buu sheekheeda noqday azhar oo dhan buu sheekheeda noqday macnaheedu maaha waa loo waxyooday ama wuu riyoodoo cilmigaa kusoo degay maaha waddadii loo mari jiray buu maray weeyaan go-aan buu qaatay hadafkiisaasi inuu xaqiijiyo waanu xaqiijiyey noloshu markaa waa sida aad u go-aan qaadato noloshu waa sida aad ahdaaf u samaysato gool sida aad u samaysato haddaad si rabto inaad tv-ga iska daawato mobilka iska daawato wax iska cuntid waqti badan seexatid kubadda iska daawatid noloshana aad wax ka noqoto waad riyoonaysaa in lagu toosiyaa baad u baahantay marka waa nin riyo ku jira ee nin noolba ma tihid qofka nooli wuu garanayaa halkuu ku socdo iyo waddadu u marayo dadka yurub iyo ma soomaaliyeed dhallinyaray u badan yihiin dhallinyaray waxaan leeyahay akhriya adduunba waa xoogsan karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha u waajah waxaad go-aansatana waad xaqiijin kartaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin